kaxaynta gawaarida ama darawalnimadu waa hawl aad u adag waxaana lagu tiriyaa howlaha ugu qatarsan ee ay raggu qabtaan inkastoo dumarku howlahan ay ku yar yihiin sababtoo ah waxaa loo baahan yahay sabar aad u fara badan sidoo kale qaababkii iyo farsamadii lagu mari lahaa meelaha aadka u saxmadda badan ama u ciriiriga badan sidoo kale darawalnimada ayaa shayga koowaad ay u baahan tahay wuxuu yahay geesinimo ama dhiiranaan sababtoo ah haddii aad ka baqayso inaad shil gasho ogow marka dambe waad gelaysaa laakiin waxaa la doonayaa inaad noqoto waxaa la iska doonayaa inaad wadnaha meel iska soo dhigto marka aad noqonayso darawal sababtoo ah waddadaas ay isugu imaanayaan dadyowga aadka u kala duwan ayaa kaa sugaysa in aad ilaaliso birahan la isku kabkabay ee aad saaran tahay marka aad gaadiid kaxaynayso waxaa lagaga baahan yahay inaad tahay qof mar waliba digtoon kana digtoon inuu galo qaladyada u keeni karaya inuu naftiisa ku waayo ma og tahay in sanadkii 2013 oo keliya 1.5 milyan oo dhalinyaro ah ay u dhinteen shilal ka kala dhacay caalamka oo idil waxaana shilal ku dhaawacmay wax ka badan 20 milyan oo qof haddii aad sidoo kale eegto dadka ku dhintay shilalka diyaaradaha isla sanadkaas 2013 waxay gaarayeen tiradoodu 173 qof hadda aan isla eegno waddan kale waddada ugu xun ee gaadiid lagu kaxeeyo iyo midda ugu wanaagsanba waxaa jirta laba hab oo ay isticmaalaan culimada arrimahan ku xeel dheer si ay u ogaadaan waddada ugu xun ama ugu khatarta badan ee caalamka habka koobaad ama dariiqada koobaad ayaa waxay tahay tirakoobka tirada dadka dhinta sanad waliba marka laga eego 100,000 ee qof ee walba waddooyinkaas waxaa kaalinta koobaad kaga jira waddanka Liibiya oo haysta tiro gaaraysa 73.4 marka la eego dadka u dhintay shilalka ka dhaca caalamka waxaana ka hadlaynaa sanadkii 2013 kaalinta kalena waxaa degay waddanka Mareykanka oo haysta 10.6 marka la eegayo dadka shilalka ku dhinta ee caalamka Ingiriiskuna waxay ka joogaan kaalinta ah 2.6 dadka ku dhinta shilalka ka dhaca caalamka Norway ayaa iyaduna waxay ka gashay 2.2 marka laga eego dadka ku dhinta shilalka caalamka iyadoona lagu tiriyo waddanka inuu yahay wadamada leh wadooyinka ugu ammaanka badan ee caalamka habka labaad ama dariiqada labaadna waxay tahay qiyaasidda tirada dadka ku dhinta wadooyinka sanad waliba marka laga eego 100,000 ee gaariba dariiqadan ama habkan liiskii oo dhan way bedeshay waxaana kaalinta koobaad degan dawladda Guinea oo ay ka dhaceen 9,462 xaaladoo dhimasho iyadoona tirada laga eegay 100,000 ee gaariba ee shil galay Ingiriisku waxay ka haysataa 5.1 xaaladaha dhimasho ee wadooyinka ugu aaminka badanna waxaa ka mid ah wadooyinka Norway oo haysta tiro gaaraysa 3.1 inta ka soo gudub markii aad aragtay muuqaalkan ciwaanka ku qoran طبعاً hadda waxaad sugaysaa inaad ogaato waddada ugu khatarta badan ee caalamka inta aanan u gelin arinta ka hor mid waa inaad ogaataa waddooyinka ugu khatarta badan ee caalamka marka laga hadlayo tusaale waddanka Afghanistan sanadkii 1982 xilligaas oo midowgii Sofiyeeti ay gumaysanayeen waddanka Afghanistan waxaa jirtay waddo loo ictibaariyo ama laga soo qaadi jiray inay tahay waddada ugu khatarsan ee caalamka sababtoo ah gawaari waaweyn oo xamuula ayaa halkaas isku ciriirin jiray iyadoona halkaas gawaarida kale ee maraysa inta ay waddada sugayaan ay qaarkoodba u dhiman jireen gaajo sababtoo ah gadaalna uma bixi kartid horena uma bixi kartid waa waddo aad u halis badan 176 qof ayaa ku dhimatay waddadaasi ku taala waddanka Afghanistan iyagoo sugaya in ay ka baxaan zaxmadda iyo ciriiriga gawaarida haddaba waddadaas oo xaalad sidaas oo kale ay ka dhacday uma ictibaari karno ama kama soo qaadi karno waddada ugu khatarta badan ee caalamka hadda waxaan doonayaa inaan idin tusiyo waddada James Dalton ee ku taala Alaska midaasi oo ah waddada degdega badan misana khatarta huwan waddadan waxaa loo qadariyaa inay tahay waddada ugu khatarta badan ugu halista badan ee caalamka sababtoo ah waddadan dheer waxaa ku yaala 3 magaalo oo kaliya halkii magaalana waxaa degan 60 qof oo kaliya sidoo kalena ma lahan ajabyada shidaalka laga helo oo waxaaba ku yaalo oo kaliya 3 ajab haddaba haddii aad gaarigaaga shidaal ka soo buuxsato waxaa lagu dhibaato gelinayaa inaad jarto 240 mayl si aad u gaarto ajabka markaasi ku soo xiga ee aad shidaal ka heli karayso wadadan ayaa waxay u diyaarsan tahay 25% in gaadiidka ama gawaarida lagu kaxeeyo haddii aad arrimahaas oo dhan ka gudubto oo ka badbaado waxa iyaduna arrin kale oo muhiim ah inaad ogaato
in halkaasi laga helayo ama ay joogaan dubka qudbiga oo hadduu kuu soo dhowaado laga yaabo inuu naftaada halis geliyo amaba uu ku cuno sidoo kale waxaa xusid mudan heerkulka halkaasi ka jira oo xilliyada qaar gaara 62 Fahrenheit haddaba waa inaad macluumaadkaas aan ku siiyey aad haysataa haddii aad doonayso inaad gaari ku kaxayso waddadaas sidoo kale waxaa jira waddo ku taala waddanka Bolivia oo loo yaqaano Yungas waa waddo aad u halis badan iyaduna waxaana arrintaasi loo qariray ama loo sugay in ay tahay waddo aad u halis badan sanadkii 1995 waddadan magaca kale ee loo yaqaan ama lagu naanaysa ayaa waxa uu yahay waddadii dhimashada dariiqul mawt sababtoo ah shilalka ka dhaca iyo dhimashooyin badan oo ka dhacay darteed ayaa lagu naanaysay magacaas waddadii dhimashada balac ahaan marka la fiiriyo waddadan ayaa waxa ay gaaraysaa oo kaliya 3 mitir sidoo kale waa waddo ku dul taala buur dusheed waddadan sideedaba looma diyaarin in gaadiidka lagu kaxeeyo intaan xoogaa la hagaajin 2006 waxaa ku dhiman jiray wax ka badan 600 oo qof sanadkiiba haddaba dadka jecel muqaamaraadka iyo inay meelaha halista dhex galaan ayaa waddooyinkan aad u danaynaya iyagoo doonaya inay soo ogaadaan ama ay soo arkaan xaaladaha cimilada ee waddooyinkaasi ka jira khatarta laga sheegayo heerka ay gaarsiisan tahay iyo weliba waxyaabo badan oo ay doonayaan inay macluumaad dheer ka ogaadaan waddadan ku taala Bolivia ayaa heerkulkeedu waxa uu marna noqdaa mid aad u sarreeya marna wuxuu noqdaa mid aad u hooseeya labadaasi wax ka baxsanna heerkulkeeda maba lagu arkaba waad ku mahadsantahay daawashadaada fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir hadduu muuqaalku ku cajabiyana like saar waa maxamed maahir oo idin leh soo nabad ahaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu